Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabii soo dhawaada. Muuqaalkeenan maanta waxaynu kaga hadlaynaa halgamaagii weynaa ee lagu magacaabi jiray Cumar al-Mukhtaar. Waxa uu taariikhda ku galay libaaxii saxaraha iyo hogaamiye hal adag oo aan mabda'iisa marnaba ka gorgortamin. Sidoo kale waxa uu ahaa caalim diineed iyo dagaalyahan. Dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa ayuu halkan adag kula galay, hurdadana ugu diiday gumeystihii ku soo duulay dalkiisa. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato channelka, like saar si aan u soo badiyo muuqaaladan iyo kuwa kale oo ka xiiso badan. Hana ka hilmaamin subscribe. Haddii aad hore nala joogtayna aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxa uu dhashay sanadu markay ahayd 1861 bishii Agoosto. Waxa uu ku dhashay magaalo xeebeedka lagu magacaabo Sansuure ee dalka Liibiya. Aabihii waxa uu dhintay asagoo yar. Waxa uu ku soo barbaaray nolol duruufo adag leh. Waxaa lagu daray dugsi Qur'aan, halkaas oo uu Qur'aanka ku dhameeyay. Sidoo kale waxa uu bartay shariicada diinta Islaamka. Cumar al-Mukhtaar waxa uu noqday macallin dadka bara Qur'aanka iyo diinta Islaamka. Waxa uu Talyaanigu ku soo duulay Liibiya sanadu markay ahayd 1911. Waqtigaas oo uu ahaa Cumar al-Mukhtaar macallin, waxa uu samaystay ciidan, waxaanay hub u qaateen in ay la jihaadaan gumeystihii Talyaaniga oo markaas xasuuq ba'an ku hayay maatada iyo haweenka. Cumar waxa uu aad u garanayay juqraafiga dhulkiisa, waxaana uu ciidankiisii dhigay goobihii istaraatiijiga ahaa oo dhan. Waxa uu kula dagaalamay ciidan yar oo aan cudud badan lahayn. Gumeystaha oo ku hubaysnaa waqtigaas hubkii ugu xatirsanaa ee jiray. Dhulka saxaraha iyo buuraha oo marin u ahayd gumeystaha ayaa dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa ayuu halkan adag kula galay gumeystihii Talyaaniga oo isku fidinayay dhulka Liibiya. Waxaana uu halkaas ku jiray muddo lagu qiyaasay 20 sano, waxaana Talyaanigii ku adkaatay in uu isku fidiyo dhulka Liibiya. Waxay ugu dambeyn ay ugu yeereen wada hadal, waxaanay u soo bandhigeen in ay siinayaan guri qurux badan iyo lacag uu ku ganacsado, balse midaas beddelkeeda asaga iyo ciidankiisa ay isu soo dhiibaan. Waxa uu ugu jawaabay Cumar al-Mukhtaar inuusan dalkiisa nabad ku bedelanayn laaluush, waxaana uu raaciyay inuu dagaalku sii joogsanayn ilaa uu gumeystuhu dhulkayaga ka baxo. Cumar al-Mukhtaar waxa uu sii laba jibaaray dagaalkii, halkaas oo ay gumeystihii kula kulmeen halaag iyo guuldarrooyin badan. Sanadu markay ahayd 1931 waxaa soo afmeeray dagaalkii uu kula jiray Cumar al-Mukhtaar. Waxa uu ku dhaawacmay dagaal culus kadib markii ay qabteen gumeystihii Talyaaniga. 3 maalmood oo xarig ah kadib waxa ay soo taageen tiir ku yaala magaalada fagaaraheeda, waxaana lagu toogtay halkaas. Intii aysan dilin ka hor waxa ay weydiiyeen ilaa goorta ay qaadanayso inta ay ciidankiisa isu soo dhiibayaan, waxaana uu ugu jawaabay isdhiibi mayno, waan guuleysanaynaa ama waan jihaadaynaa. Haddii aan geeriyoodo waxaa idinla dagaalamaya jiilka naga dambeeya iyo kuwa ka sii dambeeya. Anigu waxa aan noolaanayaa waqti dheer, kan aad idildalaysaan ani. Riyadii ahayd in uu noolaado Allaha u naxariistay Cumar al-Mukhtaar geeridiisa kadib waa ay rumowday, oo waxa ay taariikhda magaciisa ku xustay baal dahab ah. Waxa uu maanta ka magac dheer yahay kana taariikh wanaagsan yahay kuwii daldalay. Waxaa taariikhdiisii lagu qoray buugaag aad u fara badan. Sanadu markay ahayd 1980 oo ku aadanay sanad guuradiisii maalintii uu geeriyooday, waxaa Mustafa al-Caqad uu ka sameeyay filim lagu magacaabo Lion of the Street, libaaxii saxaraha. waxaana ku baxay filimkaas samayntiisa lacag dhan $35 milyan. sanadu markay ahayd 1961 waxaa dalka Liibiya laga furay jaamacad lagu magacaabo
aabihii halganka Liibiya ee Cumar al-Mukhtaar. waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga insha Allah.